Ponzi scheme waa nidaam khiyaano ah oo qofka maamula uu dadka u ballan qaado faa'iidooyin waaweyn oo degdeg ah isaga oo aan wax ganacsi ah ama maalgelin dhab ah samaynin. Halkii faa'iidada laga heli lahaa maalgashi dhab ah, waxaa la isticmaalaa lacagaha ay keenaan dadka cusub si loogu bixiyo faa'iidooyinka dadkii hore. Taasi ayaa dadka ku qancisa in maalgashigu faa'iido leeyahay, waxayna keenaysaa in dad badan ay lacagtooda keenaan, laakiin nidaamku wuu burburaa markii dadka cusub ay yaraadaan. Taariikhda iyo sida ay u shaqeyso khiyaanadan. Charles Ponzi oo Talyaani ahaa ayaa caan ku noqday khiyaanadan 1920kii. Waxa uu dadka ku qiyaameeyay fikrad fudud oo ku saabsan inuu lacag ka sameynayo farqiga qiimaha tikidhada boostada ee dalalka kala duwan, international reply coupons. Waxa uu sheegay inuu tikidhada ku iibsado qiimo jaban oo dalal kale ah, kadibna Mareykanka ku iibiyo qiimo sare, taasi oo keeni lahayd faa'iido weyn. Si uu u bilaabo ganacsigan, waxa uu ka codsaday dadka inay maalgelin ku sameeyaan, isagoo u ballan qaaday inuu lacagtooda labalaabi doono muddo 90 maalmood gudahood. Dhab ahaantii wax ganacsi ah ma uusan samaynin, balse wuxuu bilaabay inuu lacagta dadka cusub ee soo galaya ka bixiyo faa'iidada dadka hore, taasi oo abuurtay muuqaal been ah oo ah in ganacsigiisu faa'iido leeyahay. Nidaamkaas ayaa shaqeeyay ilaa markii dadka cusub ay yaraadeen, kadibna wuu burburay, waxaana dadka badankood ay waayeen lacagtoodii. Marka daawada sidee iskaga ilaalin kartaa ama astaamaha Ponzi scheme-kaas maxaa waay? 1. Faa'iido sare oo degdeg ah. Waxay ku qanciyaan dadka inay helayaan faa'iidooyin sare oo aan macquul ahayn, taasi oo dadka soo jiidata. 2. Dhib yar oo maalgelin ah. Waxay u muuqdaan kuwo aan halis lahayn ama aad u fudud. 3. Lacagaha dadka cusub ay keenaan ayaa waxaa lagu bixiyaa faa'iidada dadka hore. Ma jiro ganacsi ama maalgelin dhab ah. 4. Daahitaan ama burbur. Marka dadka cusub ay yaraadaan ama dadku bilaabaan inay lacagtooda dib u dalbadaan, nidaamka wuu burburaa. Waxaan isla arkaynaa tusaalooyin casri ah. 1. Bernie Madoff waa mid ka mid ah khiyaanooyinkii ugu waaweynaa taariikhda Mareykanka. Madoff waxa uu khiyaameeyay kumanaan maalgashadayaal ah isagoo u ballan qaaday faa'iidooyin joogto ah. Wuxuu isticmaalay lacagaha ay keenaan dadka cusub si uu ugu bixiyo faa'iidooyinka dadkii hore. Markii nidaamkiisa la ogaaday 2008, waxaa la xaqiijiyay inuu khiyaameeyay lacag ka badan 60 bilyan oo doolarka Mareykanka ah. 2. Cryptocurrency iyo forex scams. Khiyaanooyinka cryptocurrency iyo forex waa tii wax badan ee Soomaalida ay ku go'day. Maanta waxaa jira Ponzi schemes badan oo lagu fuliyo internetka, gaar ahaan goobaha cryptocurrency-ga iyo forex-ta. Waxay dadka ku khiyaameeyaan inay lacagtooda siiyaan iyagoo u ballan qaadaya faa'iidooyin waaweyn, laakiin ugu dambeyntii waa khiyaano, waxaana lacagta lagu baxshaa nidaamka dadka cusub. Sidee loogu digtoonaadaa Ponzi scheme? 1. Faa'iidooyinka sare ee degdega ah ka feejignow. Haddii lacag lagugu ballan qaado faa'iidooyin aad u sareeya oo degdeg ah, waxaa laga yaabaa inay khiyaano. 2. Hubi xogta shirkadda. Ka hubi shirkadda, rukhsadeeda iyo sida ay u shaqeyso. Shirkadaha sharciyeysan badanaa waxay haystaan diiwaangelin iyo cadeymo sharci ah. 3. Weydii su'aalo. Haddii aadan fahmin sida maalgashigu u shaqeeyo ama haddii faahfaahinta la qarinayo, waxaa wanaagsan inaad ka fogaato. 4. Iska jir suuqgeynta xad-dhaafka ah. Ponzi schemes badanaa waxay isticmaalaan suuqgeyn xoog leh oo biro qofka ku soo raadina, xataa lugar uu soo raadina, iyo dadka saameynta leh, influencers-ka la dhahayo, dadka caanka ah, si ay dadka u soo jiitaan. Marka waxaa arkaynaa wadamada horumaray si Ponzi scheme-ka sharci u marsiyaan si ula dhaqmaano aan isla arkaynaa. Sharciyada iyo hay'adaha ka hortaga Ponzi schemes Mareykanka ku horumareynaa.
waxaa jira Securities and Exchange Commission shirkad la dhahayo iyo Federal Trade Commission FTC idan shirkad la dhahayo, kuwaasi oo mas'uul ka ah la socodka shirkadaha maalgelinta iyo suuqgeynta. SEC markii la shirkadaas loo soo gaabiyo waxay baartaa oo dacweysaa shirkadaha qiyaamada ah. Midowga Yurub markii la tago waxaa jira European Security and Markets Authority oo ESMA loo soo gaabiyo oo kor joogtaysa ganacsiga maalgelinta si loo hubiyo inaysan jirin khiyaanooyinka bonds scheme. dalalka carabta ah sida Imaaraadka iyo Sacuudi Carabiya waxay leeyihiin hay'ado maaliyadeed oo si adag u kormeera shirkadaha maalgelinta sida Saudi Capital Market Authority oo CMA la dhahayo. Kenya oo kale hadda iyo Nigeria markii la joogo waxay leeyihiin waxaa jira hay'ado maaliyadeed sida Capital Markets Authority CMA ee Kenya oo mamnuucay bonds schemes gaar ahaan kuwa lagu qabto internetka. Marka Soomaaliya yaa u maqan shuruucda iyo ciqaabta oo marayo qofka bonds scheme-ka oo sameeyo. shuruucda la marsiiyo ama ciqaabta la marsiiyo qofka bonds scheme lagu qabto wadamada hormaray. bonds schemes badanaa waxaa lagu xukumaa khiyaano maaliyadeed, fraud ama xatooyo. dadka lagu helo waxay wajahaan xabsi sida Bernie Madoff oo lagu xukumay 150 sano oo xarig ah. ganaaxyo dhaqaale waxaa lagu ganaaxaa lacag weyn si lacagta loogu soo celiyo dadkii laga qiyaamiyay. xanimaada hantida qofka ama shirkadda ayaa la xanibaa ilaa baaritaanka uu ka dhamaado. tusaalooyin sharci ah oo khiyaanadoodii la fahmay kadibna abaalmarintii la marsiiyay aan isla arkayna. Bernie Madoff markii khiyaanadiisa lagu fahmay ninkan waxaa lagu xukumay 150 sano. Bitcoin Connect idan shirkad la jiro cryptocurrencies ayaan dadku khiyaaneen jiray bonds scheme la korgambanay. markii la qabtay waxaa loo isticmaalay lacagta digitalka ah si loo fuliyo bonds scheme weyn oo adduunka dhan saameeyay. waxaa la xiray qaar ka mid ah dadkii maamulayay waxaana la xanibay hantidooda. shirkadda dhanaa la wareegay Global Nigeria iyo Ruushka ku taala laga sameeyay khiyaanadan. waxaa loo adeegsaday internetka iyo baraha bulshada si loo soo jiito dad badan oo Afrika iyo Yurub ku noolaa. dowladaha dalalkaas waxay xanibeen bogagga internetka iyo akoonada bangiyada ee shirkadahan. marka dowladaha horumarisaas ee isku xaliyaan. marka anina waxaa muuqaalkan uu sameeyno waxay tahay inaan ka feejignaano. anoo idinka aqoon badan aan idin dhahay laakiin dhibaatadan dad badan oo walaalaheed uu sameeyay maanta. marka ina ka feejignaataan uu sameeynoya. marka maxaa ka baran karnaa bonds scheme? bonds schemes waxay tusaale u yihiin sida khiyaanooyinka maaliyadeed ay u saameyn karaan dadweynaha gaar ahaan kuwa aan aqoonta badan u lahayn maalgelinta. waxaa muhiim ah in dadku bartaan sida loo garto khiyaanooyinka loona ogaado in maalgashigu sharci yahay iyo inuu sharci ahayn. maalgashiga sharci ah had iyo jeer wuxuu leeyahay khatarada caadiga ah, waa faa'iido kartaa waa khasaari kartaa. waxaa wanaagsan in la ogaado in faa'iido degdeg ah oo aan wax khatar ah lahayn ay badanaa tahay khiyaano.